kulamadii wadatashiga horumarinta qaranka sagaalaad ee maalmahaan ay la qaadanayeen wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda qorsheynta dawlad goboleedka Hirshabelle qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jowhar ee labada gole ee dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta kulankii ugu dambeeyay waxay la qaateen arugta ganacsiga dawlad goboleedka Hirshabelle ganacsatada ka socota ganacsatada ayaa soo bandhigtay baahiyo kala duwan oo ka jira deegaanada dawlad goboleedka Hirshabelle inta lagu guda jiray kulanka wadatashiga ayagoo horeeyaan kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadooyinka iyo amniga sidii wax looga qaban lahaa kulanku markuu soo ilaaday ayaa warbaahinta qaranka waxyaabihii kulankaasi la iskula soo qaaday iyo qodobadii ka soo baxay waxa uga waramay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Asad Yuusuf Qanyare anta wafdi ka socdo wasaaradda qorsheynta qaranka asigoo kaashanayo wasaaradda qorsheynta Hirshabelle wuxuu wada tashi la yeeshay rugta ganacsiga state-ka Hirshabelle alxamdulillah wada tashi kadib waxa ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo saddex qodobo oo ahmiyad gaar u leh Hirshabelle gaar ahaan rugta ganacsiga qodobadaas waxa kamid ahaayeen amniga la sugo qodobka labaad oo ka soo baxay oo isku xiran beeraha iyo wabiga maareynta biyaha iyo maareynta wabiga oo guud ahaan qodobka saddexaad oo ka soo baxay waa kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan jidkan oo ka baxo jowhar ilaa muqdisho rugta ganacsiga waxaan ka helnay xog badan oo runtii aan isleenahay hadii laga caawiyo waxyaalaha qaarkood inay wax soo saarkooda uu aad iyo aad u soo kormarayo iyakana waxay noo sheegteen suuq geynta inay ku adag tahay maadaama jidkan uu aad u toosnaan iyo caqabooyin kale daraadooda alxamdulillah waxaan ka tagnay meesha anagoo isku afgaranay saddexdaas qodob iyadoo aan ku soo dari doono qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad kadib wareega labaad aan isku soo noqon doonaa aan fiirin doonaa bal sidaan meeshaas uga talaabo qaadi doono Abubakar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.